دكتور وين oo dabcan u shaqeeyo bulshada ku dhaqan anigu hiigsigayga koobaad wuxuu yahay political ansayne بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halka daawaneysaan waa Tuute TV galabta waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamijyadii aan hore idinku balan qaadnay oo markaa uu noqon doono barnaamij joogto ah barnaamijkan ee maanta waxa lagu magacaabaa barnaamijka hiigsiga oo dadweynaha ee maanta u soo damaashtagay xeebta Lido ayaan markaasi wareysan doonaa oo ay waxyaabaha ay hiigsanayaan ayaan weydiin doonaa oo ay markaasi jeceliin mustaqbalka qof walba wuxuu ka hadli doonaa waxyaabaha uu hiigsanay iyo hadda meesha jooga haddii noqoto dhanka waxbarashada haddii noqoto barnaamijyada kale oo asaga u qorsheysan ayaan weydiin doonaa intuu barnaamijkan socdo waxaa si toos ah ugu daawan kartaan Tuute TV barnaamijkan waxaa si toos idin socodsiinaya anigu Guuleed Cali Cusmaan markaan waxaan eegaynaa asxaabta ee halkan ku sugan oo markaasi aan u soo gudbin doono su'aalo aad u qurux badan weydiin doona ayagoo nooga jawaabi doona waxa inta badan noqon doonaan kuwa ay mustaqbalkooda hiigsan doona waxaana aan rajaynaynaa in mar walba ay markaasi noqdaan kuwa aad u qurux badan oo marka ay iyagu ay rajaynayaan doorkooda ay ku leeyihiin dhanka dhalinyarada gaar ahaan wax walba waxa markaa ila taagan mid ka mid ah dhalinta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho oo markaasi ku sugan xeebta Lido wareen kusoo dhawaaw Tuute TV barnaamijkan waa barnaamijka hiigsiga ugu horeen magacaaga iyo waxyaabaha hiigsanaysa mustaqbalka بسم الله الرحمن الرحيم magacayga hadaan ka bilaabayo waxa waaye Cabdicasiis Cali Cusmaan oo degan degmada Dharkeeley mustaqbalka waxaan hiigsanaa mantaqaana magaalada Muqdisho waan aqaana aniga roo ahaantii magaalada Muqdisho ayaa wax ku soo bartay secondarygayga jaamacadeeda waxaan wax ka soo baxay jaamacadda Somerville waxaan soo bartay petroleum engineering EOR enhancing oil recovery maadada la dhahayo waxaan mustaqbalka aan rajeynaa oo dalkan kheyraadka badan oo shidaal ku jiraan inaan mustaqbalka oo fog ama dhow inaan shidaal soo saaro waata marka maadada sheegtay maada aad u qurux badan oo markaasi dalka ay u baahan tahay inta badan way ku yar tahay maxaa kugu dhiirgeliyay in aad doorato fakalkidaas ee marka petroleumka ahaantii facultygaas maalinta dooranay marka secondary ka soo baxay marka secondary ka soo baxaysid waxa la fiiriyaa maadada ku fiican tahay iyo hamiga iyo mowqafka leedahay ani maadada ku fiicnaa waxay ahayd chemistry-ga iyo xisaabta markii aniga ahaan waxaan jeclaa oo chemical engineering na noqdo maadaama xilliga aan soo baxay jaamacad oo secondary-gayga maadadaas oo chemical engineer xamar meesan lahayn markaan raadiyay maadadan petroolka markaan arkay iyo wadanka oo yahay in dhaqaale fara badan oo leeyahay oo arday badan iyo Soomaali badan ay aqaanin ayaan waxa isku dhiirigeliyay inaan maadadaas barto oo aan mustaqbalka fog ama mustaqbalka dhow inaan soo saaro oo aan rajaynaa waataay yaa ku dhiirigeli marka laga soo tago xirfadaas aad sheegtayna waa xirfad aad weyn xirfad kale aad markaasi ku meel marto ma jirtaa marka taasi laga soo tago wallahi xirfad aan ku meel maro waxa jirto maado oo aan iska bartay adiga photograph waxaas ayaa ku meel mara photograph-kaas isku meel meeraya laakiin aniga mowqafkayga waxa waaye oil enhancing recovery waa inaan soo saaraa wadankan dhaqaalaha oo ku jiro iyo grand house iyo dhulka waxa ku jiro horta dhaqaale fara badan Soomaalina way leedahay si aan u wadagsoonan marka aniga waxa mowqafkayga ay tahay wadankan inta oo maadadaas ay barato oilkaas way ku yar yihiin waxaan aan rajeynaa fursadan hadda u helane ya inay shidaalkaas aan soo saaro waata aad u mahadsantahay waa kaaga mahad celinaynaa daawashada aad nagala soo daawatay iyo su'aal weydiintaada aad u mahadsantahay walaal
markaan waxaan eegi doonaa asxaabta kale ee halkan ku sugan oo galabta u soo damaashaad tagtay waxaana daawanaysaan Tuuta TV barnaamijkan waa barnaamijka hiigsiga markaan mid ka mid ah dhalinta magaalada Muqdisho ayaa igula soo biiray ugu horreyn walaal magacaaga iyo halka aad markaasi ka timid iyo galabta oo halkaan aad ku damaashaadayso wanahay runaantii magacaygu waa Cabdikariin Yuusuf Maxamed waxaan deganahay degmada Yakshiid oo ku dhowna barnaamijkaas si wanaagsan waata Cabdikariin mustaqbalka hami badan aan leedahay maxaa hiigsanaysaa oo ugu horeey xilligan hadda waxa aad hiigsigaadu u qorsheysay runaantii hiigsi hadii la yiraahdo qofka bini'aadanka hiigsigu hiigsanaya aad bay u fara badan yihiin waxyaabo aad u fara badan laakiin majority-ga anigu hiigsigayga koobaad wuxuu yahay political siyaasad cusub siyaasad majority inaan wadanka ku soo kordhiyo duu Allah inoo day suurto gasho ilaahayna nafta ii daayo hiigsigayga koobaad waa intaas laakiin hiigsiyo badan waa jiraan oo qofka bini'aadanka dhowr hiigsi uu yeelan karaa samad garan marka hiigsigayga ugu koreeyo waa political waa tahay fikradaadaas yaa kuu dhiirigeliyay mid go'aan adiga aad qaadatay mise mise asxaab mise hore ayaa u aaminaysay runaantii dhiirigelindii la yiraahdo waxay igu dhiirigeliyay marka koowaad waa nafsadayda waa jacayl anigu oo qabo midda labaadna waa ehelka iyo qaraabada iyo macallimiintaydii iyo bulshadaydii aan wax la soo bartay ilaa haddana aan ku dhex jiro ayaa igu dhiirigelisay faculty-gaas laakiin rabitaanka anigu iga yimid markii koowaad waa tahay Cabdikariin aad u mahadsan tahay sida wacan barnaamijka aad ugu qayb qaadatay wili waxaan ugu jirnaa barnaamijka hiigsi iyo sidoo kale Tuuta TV ayaa nagala daawanaysaan qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaa markaan soo gaarnay dhalinta wili ku sugan deegaanka ama degmada Cabdicaziis ee xeebta Liido oo galabta u soo damaashay tagay ayaa barnaamijka ugu talagalnay in dareenkooda aan ku weydiino walaal ugu horreyn ku soo dhawaaw Tuuta TV hiigsigaadu muxuu yahay aad u mahadsantahay waan ku dhawahay haddii aan ka hadlo higsigeyga waxaan rabaa mustaqbalka inaan noqdo doctor weyn oo dabcan u shaqeeyo bulshada ku dhaqan adduunka daafeeda waan rajaynayaa higsigeyga waa midaas waa tahay markii doctornimada la dooranayo marka waa ay kala duwan tahay fakaltiyo badan ayay u kala baxdaa marka adiga tee ayaad markaas u gooyi doontaa aad u mahadsan tahay anoo ka faa'iideysanayo fursadan oo aan u gudbinayo dhageystayaasha barnaamijka dabcan wuxuu ku saabsan yahay waxa hiigsanayso mustaqbalkaaga muxuu yahay hadii aan sheego department ayuu u qaybsamaa marka la baranayo faculty-ga health science ama la yiraahdo caafimaadka anina waxaan baranayaa maadada ama la yiraahdo department-ga lab ama medical lab tahay aad u mahadsan tahay sida wacan barnaamijka aad nagala qayb qaadatay baan kaaga mahad celinaa waxaan markaa joognaa gabagabadii barnaamijka qofka ugu dambeeya ayaan siin doonaa oo kadibna barnaamijka ayaan soo afmeeri doonaa ugu horreyn walaal ku soo dhawaaw Tuuta TV bal ka waran hiigsigaada aad markaasi haminaysid iyo waxyaabaha aad jeceshahay ugu horreynna magacaada ku bilow بسم الله الرحمن الرحيم أنا أكو بلابنا مجيء إسماعيل حسن عبد الله waxaan jeclahay in higsido qof walba oo bini'aadana wuxuu leeyahay higsi oo leeyahay inuu mustaqbalka u gaaro mustaqbalkiisa waxa qofka ka hor istaagaya jiraan moor caqabad jiraan inuu ka hor istaagayaan oo qofka mustaqbalkiisa inuu higsido ay ka hor istaagaan alla ilaahay maanta qofkii higsada mustaqbalkiisa aartay waa qof madaxa loogu istaagay waa qof soo macnaa soo habeystay waa qof marka waxa hamigiisa soo u sameeyay lahay gaaray waa taas marka waxaan leeyahay qof walba mustaqbal oo rabo inuu higsi fiican u gaaro insha Allah ta'ala waan gaari doonaa insha Allah aan maasantiin waa tahay aad u mahadsan tahay daawadayaal wili waxaad daawanaysaan Tuuta TV waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkan waxaa igala qayb qaatay asxaab badan oo markaasi dhalinyarta magaalada Muqdisho gaar ahaan ku nool degmooyinka gobolka Banaadir waxaana ku sugnaan degmada weyn ee baaxadda weyn damaashaadka quruxda badan ee loo soo daawasho tago xeebta Liido ama degmada Cabdicaziis barnaamijka intuu socdo waxaa idin socodsiinayaan Guuleed Cali Cusmaan dhanka kaamiradan waxaa iga saaciiday saaxiibkay Cusmaan Janagale intaan barnaamijkan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe iyo muuqaal dambe asxaabtana waxaan u sheegaynaa in ay markaasi ay caawiyaan oo markaa wax walba oo markaasi horumarkooda ayaan siin doonaa iyagoona
subscribe-kii like-tii share-ka aynu caawin doonaan sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh